الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدح يلاباتنات هي كتاب كيني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله قيبتا وحن سوق بدينا هذا لكو كوبا والشيخ ويري سيقوني إن شاء الله تعالى كتاب كان قوة حسن إيو بيجيجك وولي بكو شيء أرنكا wuxuu leeyahay ibnulqayim raximahullah allah ma soo dejinin samada kama keenin shifaa waa caafimaad ka weyn ama ka anfac badan ama ka faa-iido badan dhibka ku haya iyo cudurka ku haya faa-iido ka fiican qur-aanka in lagu zuuliyaayay ilaahay ma soo dejinin bejka 6 buu arrintaa ku sheegay. waxaa kaluu sheegay waxaan joogay buuhi magaalada maka aniga oo cudurro ay ahayaan dhakhtarna aanan helin dawana aanan helin waxaan ku cilaajinaya oon ku daweynaya naftayda faatixada waxaan ka arkay buuhi athar raad aada u cajab badan ayay ugu samaysay oo dawo ah. bejka 7 addaawa dawaa buu ka hadla arrin bejka 8 wuxuu soo guuriyey hadalkii Cuthmaan ibnu Cafaan uu yidhi oo ahaa haddii la igeeyo jannada iyo naarta dhexdooda aanan garanaynin midoodii la ii amri doono waxaan dooran lahaa inaan noqdo ramaadan. ramaad waa dambas inaan noqdaan jeclaan lahaa intaanu ogaanin mideeda aan u ahaan doono. bimacnaa waa mowqif aada iyo aada xarij u ah qof jannada iyo dhexdeeda iyo naarta dhexdooda taagan oo mid loo amri doono aan garanaynin xaggaa loo dhaqaajin mise xaggaa loo dhaqaajin waxaan dooran lahaa buuri inaan iska noqdo dambas inaan iska noqdo ayaan jeclaan lahaa. wuxuu kusoo guuriyey bejka 94 kitaabka addaawa dawaa. haddana wuxuu soo guur hadal uu yidhi abudardaa waxa aan uga cabsi badnahay naftayda maalinta qiyaamo waa in la yidhaahdo ayaa abudardaa intii lai dhawaaqo cilmi waad baratay ma ku dhaqantay wixii aad baratay. waa arrin aada iyo aada isaguna u xanuun badan. wuxuu kusoo guuriyey sheekhu bejka 95. haddana cabdullaahi ibnu cabaas arrin laga sheegay uu lahaa wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cabaas labadiisa indhood hoostooda waxaa ku yiilay 2 khad ama 2 layn oo ilintu ay samaysatay. bimacnaa khad madow ayaa indhaha hoostooda ka muuqanayay. waa oohinta uu la ooyayo ilaahay diintiisa markay dhaqaajiso. kitaabka addaawa dawaa bejka 95 buu arrintaana kaga hadlay. salafka qaarkood waxay odhan jireen macaasidu iyo dunuubtu gaalnimada ayay boosto u tahay. bimacnaa waa meeshii boostada warqadaha inoogu yimaada. warqada lagaaga soo diray adduunka daafihiisa meel kasta haddii adareyskaaga iyo ciwaankaaga lagu qoro gurigay kuugu imaanaysa soo maa. marka macsiyadu qofka meesha usii hogaaminay u wada aakhirka gaalnimo weeye. sidaasaa salafka qaarkood laga soo guuriyey. sida waxay yidhahdeen alqubla shuminta uu qofku wax shumiyaba ay iyaduna u tahay boostada jimaaca iyo galmada meeshii loo mari lahaay waa shuminta ayaa iyadana albaabkii loo mari lahaa weeye. alghinaa oo ah heesuhu waa iyaguna boostadii zinada qofka u hogaamin lahayd inuu zinaysto. boostada ay usii martaay waa heesaha weeye. annadar oo ah eegmada qof xaaraankaa ah inaad fiiriso isaguna waa boostadii cishqiga inaad qofkaa jeclaato ee boostadii aada u mari lahayd weeye. almarad geeriduna waa boostadii waxaan jeedaa jiradu. almaradu waa jiraduna waxay iyaduna u tahay bariid almowt geerida boostadeedii weeye. hadalkaa wuxuu kusoo guuriyey ibnuqayim addaawa dawaa bejka 125. waxaa kaluu sheekhu soo guuriyey uu yidhi risqiga ilaahay laguma keensado
wax ka weyn bitarki lmacaasi. macsiyada ka tegiddeeda waa shayga ugu weyn oo arsaaqada ilaahay uu qofka ugu keeno ka tegidda macsiyada weeye. kitaabka addaawa dawaa bejka 133 ayuu arrintan kusoo guuriyey. ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo, qowlkeenna iyo ficilkeennaba allah ilaaliyo. wajazaakum allahu khayr, wabaaraka allahu fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.